السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب عيسو دول ما شاء الله أصحابتم حائدين هي عوضة ملا وحيرة الماء في عن ما شاء الله الماء قفين وعن كرا لكن هاد الماء وكرنا ما شاء الله عن غسين روا كصحابي ملا وحين انت سكوكوين هاي انت جدين وكوكوين ما شاء الله وبردة وكاروت بردة لو حبوا كاروت هل حبوا محل ده هيلب يوكو محل هيلب يوم محل iyo waxaa waaye beer yar iyo kili maasha Allah iyo hal xab basal caanahaas ku qasanayna caanaha qandac inuu yahay iyo waxa kale ku qasanaya maxay ahayd intaan suuga waxaan ka dhiganaynaa suqaar yar intaanna waxa ku qasanayna ukunta sokorta caanaha baking powder waxyar cusbo iyo burkaas isku qasan doona insha Allah intaan waxaan ka dhiganaynaa maxay ahayd suqaarka cunug ku siin lahayn cuntada maasha Allah aan wasiisa rabaa marka hilibku jilcan yahay asxaab sayd uu jilcan yahay oo jidin jilaac waaye kaliya ku jirto iyo hilibku ku yaray kaliya beer waaye deecaankan ka rabaa insha Allah cunugina deecaan ku sistaan rabaa asxaabta maasha Allah ila socod wanaagsan asxaabe aad inta mahal celinaya ila socodka say ila socotiin sida qurux badan maasha Allah oo jeedina hal xabo kun waxa ku dar waxyar sokor waxyar baking powder cusbo yar baking powder asxaabta ka diin kartiin ma aha muhiim baking powder waxa muhiimad waxa waaye in aan qandac ugu qastid maasha Allah soo ciyo kugu faxo fitamiin uu ka helayo cunug maasha Allah caanaha waa caano alaal cunugaaga cabo oo ku qasan kartaa muhiimad ma in caano fiican maaha cunugaaga caano alaal cabo oo qasaysan hadkiiga ankor waaye ankarasiya ankarta usoo karkariyo biyaha usoo qandiciyo oo kusoo qas maasha Allah biyaha qandici yihiin ma qaboobano caanaha biyo qandaca kusoo qastay xabada ukunta ku darsanaya insha Allah marka saxaaba ka markaan soo qasanay oo soo diyaarsanay waa ka birtan hore ka soo saaray ana wax daqiiqad ma sugin insha Allah casho kala karsanay maasha Allah daqiiqad dhan ma sugin intaan bis ahayd soo saar soo waxay waa u jilceen u jeedin burka maxay ahayd mada wax maasha Allah soo faxayn deendo u yeesh quruxdaas ku soo baxay u jeedin marka asxaabta baking powder waa ka deyn kartaa muhiimad ma aha baking powder waxa uu muhiim in caano qandac ku qastid soo iyo kugu soo faxo protein uu helo cunuga bas cunuga duu caano iyo ukun la isku dar maasha Allah asaaba maasha Allah ku noqon doona soo tijaabiye insha Allah cunuga haduu ukun badan uu energy ku yahay waxay ahayd ka yaray ukunta hal xabo ugu dar meesha ukunta ugu badan lahayd waxa ugu badisa caanaha ugu qasan biyo qandac caanaha ugu badan haduu maxay ahayd ku cabay ukunta energy ku aheena waxa ku sameyn kartaa ukunta u badin kartaa asxaabta elefantina oo maleena marka saxay wara idinku daalinin waa ka geedkii waasoo ku soo baxay gaduudkaas wax daqiiqad ma sugeenin wax daqiiqad ma sugin asxaabe markaasaan soo qasay hore birta soo saartay meel ka daahsanaa cashana karsanaa casho kale maasha Allah marka ka soo u gudgudinayna saliida soo marsanay muhiimad waxa waaye inuu guduud labada dhinac maasha Allah qalajinin mala waxa intuu ka adkaada sugin dabka bikaas cunuga ku cunayo inuu wax jilcan uu rabo ogtihiin marka saliida ku qasan ku duba hadeertaan qani saliid waxa la ku soo qasin laakiin saliida ku dubooya hadeertid waxa ku duban kartaa macsaro saliid alla saliida jacashahay بلوبان سوق لقاد ما شاء الله كل ساعة ku qasan kartiin faanteen waa ku duwan kartiin aan cafan waa ku duwan kartiin muhiimada waxa waaye ma wax macaan cunug inuu ku helo oo fitamiin leh oo borotiin ka helayo wax borotiin u kaleena ku daalin asxaabay wax kasto indhaysiinaysid fiir borotiinku ka helayo fiiri iyo wax kasoo galaya haddii bariis pasta siina ama waxaan cunug cuna keeni karto ogtihiin cunuga anaga nagu mid ma noqon karo maasha Allah waxyaabo jilicsan iska macaan uu rabaa oo kala bedel oo nooc ah uu rabaa maasha Allah hal cunto ka hor imaanaysa hal cunto ka hor imaanaysa insha Allah marka ka faa'iideyso waxaan asxaabta gabdhaha ilmaha qabaan hooyooyinka kulli familka lagu faa'iideeyo insha Allah marka asxaabi waa ka saada mal waxaan saas ugu dubmooyaa hada kaamirada badan ma jireenin markaasina ila aragtina rabo sida qurux badan ku soo baxay ina ila aragtina rabo asxaabta si fiican ila aragtiin waa ka saas u jilaac yahay labada u horeysa u jeedin kii saddexaad ku jiro maasha Allah
kii saddexaad suu u yahay waa ujeedin quruxdaas maasha Allah suu qurux badan yahay waxaana hadda la dubay ma isdhiisin asxaab ma fahanteen waxaa u malaynaysiin 4 saac 5 saac ama nus saac soo qamiirsanay oo malaynaysiin mana qamiirsano waxa waaye waa soo qasay waa ka soo dejiyay mana aha baking powder ma yeelaayo asxaab ma fahanteen baking powder waa ka din kartiin ha isku daalin baking powder haysanin baking powder haysan waa iska dhaafi kartiin baking powder wax u taray ma laha caanahaas qandaca iyo biyahaas kulul iyo caanaha lagu soo qasay iyo ukuntaas ku fiixinaysa iyo sokorta iyo cusbada hada isku dartid maasha Allah ka dhigan ku dhahay maasha Allah jileec oo ka dhigaa aan ku dhahay soft ma fahanteen marka ka faa'iideysto asxaabta ka faa'iideyso waan insha Allah ka faa'iideyso waan asxaabay oo ujeedin hadaltaan soo nudumooyo xataa kaamirada ma jirin maasha Allah asxaabta soo quruxda badan oo noogu soo baxay ujeedin indhahaas waxa malaysaa canjeero xal la qas ama saake la qas oo lagu daray leewito ku daran ujeedin waxa ku daray baking powder bas maasha Allah asxaabay ka faa'iideyso waan asxaabta insha Allah ku idin ka faa'iideyso wax ku anfac Ilaahay idinka dhigo ku dadaal ilmaha asxaab fahanteen ilmaha laga daayo bariiskii baasada qaleelka la siinayo cunugan wax kasto aad siinayso waa inaad u jilcisaa cunug waxaana ka calaanjin karna ma cuni karo asiga oo yar yahay marka wax alaal waxaana ka maxay ahaydey oo asiga uu cuni karo markaas inaad ku dadaashto ku fiican maahano insha Allah asxaabta ilmaha cuntada u badbedela wax kasto borotiin leh raadiya maxay ahaydey siiya macnaheedu hilibkana ma aha asxaabta inuu idin cuno muhiimadu waxa weeye dheecaanku hilibka dhalayo waa inuu ku cuno bas hilibku asoo cuno la mid yahay soo moogta dheecaanka markuu cuno hilibka asoo cuno la mid yahay marka asxaabay saas inuu fikirtiin fiican ka faa'iideysta walaalahay qaaliga waa idin jeclaa meel kasto joogteen Ilaahay waxaynu ku sameeyay caafimaad taam ah idin rajeynaa insha Allah asxaabta marka kaas asxaabay mar waxayna kaas gududka ugu soo baxay quruxdaas ujeedid waa asxaabta kaasa markaas xaabay karaan laqad kaamirada gedgediska boobsiisa lagu jiro meel waa lagu socdo casho karis waa lagu jiro asxaabta ma fahanteen marka karaan noqda kaamirada hadee dhinac tahay insha Allah karaan noqda marka kaasa mala waxayni quruxdaas oo qabaa hadda isaar waaye hadda dejin fahanteen hadda qas hadda dub waaye maasha Allah shaqo fudud waan ku dhahay shaqo fudud casho waa ugu dhigi kartaa waxay hada quraac waa ugu dhigi kartaa marka saacad u bedela baasta makaroonida camal ilmaha waa loo jilciyaa qudaar ayuu nooc dhan loogu daraa qudaartaas markay bislaato dheecaankaas ay dhasho cunug borotiin u yeelana ku fikir dheecaanka inuu haduu hilibka maxay ahayd uu cuni waayo maxay carrot-ka camal haduu markay bislaato carrot-ka dheecaan ay tufaysaa dheecaankay tufta maxay asoo iyadoo adag haduu cuni waayo oo nool camal dheecaankeeda ku jiro maraqa uu ku cuno maasha Allah adigu ku dar ayuu nooc cunugay waxaan ma cunahay dhihin qudaar kasto wadanka baxdo qudaar kasto ugu dar cunug waxa ku karanaysid soo asigana borotiin ugu hel maasha Allah ugu dadaalo mooska ceyriinka camal waa la siiyaa ilmaha maxay ahaydey energy ku hela hatta cabitaanka waa loo shiidaa liin bambeelmada maxay ahayd fruitka waa loo sameeyaa markasto ad wax un calooshiisa geli maanta dhan wax un bedel wax un sii madara caana siina ama hadhow marka qadeenayno nala qadeena cunug waxaas ma noqon karo cunug bishaariyadaas ilmaha jiraan u soo shiida siiya asxaab ma fahanteen hal hadaa qabti 10 cunug hadaa qabto waa isla markaas bahooyaa tahay marka asxaabta hadaa hal dhashi iyo hadaa 4 dhashid waa isku mid hooyaa tahay loo jeero waa laga rabaa wax karis marka asxaabta ka faa'iideysta mala waxaan waa ujeedin kaamirada badan ama jirooy yaa wax yar boogiye inta badan ma jireen waa ujeedin ka faa'iideysta waxaan asxaabta ka faa'iideysta idin leeyahay kun iyo kow jeer saasoo indho u leeyahay quruxdaas ku soo baxay waa qafiif ma aha bur ceyriin qafiif waaye halkaan daan ku shubay ujeedin burka aan ku wareejinayo birtaan aad u fiican tahay wax kasto ku samee ukunta camal
ceeshka camal ida lagu qiyaastaa maasha Allah canjeerada camal quruxay ka dhigtaa birtaaneti marka birtaan ku qiyaasta asxaabe waa ujeedin geedkan oo gidin rabo iga dhacay maasha Allah kuleel waaye buusiisa lagu jiray dhima lah laakiin asxaabta laakiin ka faa'iideysto wacan markaas ama wixii soo jileec u yahay gaduud u yahay markaas maasha Allah asxaabta ka faa'iideysto ma fahanteen kuwii ka faa'iideysto oo wax ku fahmi Ilaahay idinka dhigo insha Allah asxaabta waan idinkaga mahadcelinaa kunii koo jeer saa ila socotiin aad u mahadsantiin asxaabta soo dhawaada waa kaas mala wixii cawas suuq soo baxay quruxdiisa u jeediin jileeca kaaga sii daray safti waaye inka disad wax saliid leh marinaysa saliid ka badinin soo gaduudanaya asaa gaduudanaya gaduud saliid ku bariyaysid inta ku shubeyna u jeedin ajiinka waa wax yar ka badinooy inta qalina birtas ugu wareejinaa bas ida isla kaanaysa maasha Allah ku soo baxaysaa marka saacad mal wixii markaa soo dhameysana u jeedin dabka waxa saaran saliid waxaan ku darsanaynaa basalan ku darsanaynaa hal xabo yar oo soo jarjarto ay basasha aan ku darsaday marka soo shiilna wax xiraan saandaha ma daboolay qaandale marna insha Allah waxa ku soo darsanayaa kilidi iyo hilibka yaray ku soo darsanaya insha Allah u jeedin kasaas ay u shiilanta wax yar hilibka iyo kilidi iyo beerka isku jira ku soo darsanaya marka beerka iyo kilidi iyo hilibka maraba inaa biyo ku kariyo waa shiilaya insha Allah waa shiilaya hilibka saaid u jilicsan yahay fridge ma gelinin oo meel jilicsan ka soo goosto ma fahanteen marka wax yarkaas baradhada hadhow marka gadaal biyo ugu dara laakiin hadda shiil inaa ku kariyo rabaa waa daboolay hadana waa isku soo laaban asxaabta وكسر صوص وشيل مويا مرق دجاج كدر صدق مرق دجاج داعين وكدين كرتا وح قربة ملها سبدا هذا كدر سنة وحلال واحد استعمال شجرة استعمال كدر سنة سو وشيل موجودين أصحاب تصاور دعان دلهم موجودين وهي لبكي وسليدي بس شيء دعان اسكو دلهم ما شاء الله صوص النقطة أساس مركو النقطة موجودين وشيل مو كرسمة مع كدر سنة كارات كي برد ما شاء الله وصير يرى فوجرته وكدر سنة ka ku darsada cabaar isku soo huurna kadib biyaan ku daraa asxaabta kuwa isku qaleena kadib hadana biyaan ku soo darsanaa asxaabe laakiin cabaar isku shiilay waa daboola way shiilmaysaa cabaar marka shiilint kadib biyo ku daraa insha Allah kas cunug leesiinaya waxay ahaydee maro inuu biyo noqdo asxaabe af yaraal noqdo markaan biyaha ku daray idinmaga aadin kaamirada waa hilmaame markii dambe la dareemay inaad duubaay ma sha Allah marka waxaan ku daray qaandadan hadda ku walaaqay afarteeda biyaha ku daray maro biyaha inuu iga bato rasiina rabaa inaan ku siiyo biyaha inuu iga bato maro insha Allah qaandadaas hadda aan ku walaaqay afarteeda leen ku daray wax kale aan ku daray gadaashin malaha marka intaan isku soo fuurina markay soo kartaan isku soo laabanayna asxaabta oo ku soo laabanay asxaabta kadib marka ku soo laabano u jeedin ma sha Allah si u soo baxdo kalar ruux badan la soo baxdaan ku dhahay wax jajabin malaha waa dheecaan yar oo rasiin oo kilidi beerkii hilibkii wixii dhan dheecaankiisi la soo baxay ma sha Allah waxaan ku darsanayaa basal iyo gobol barbarooni iyo qajaarka cunug waa ogtihiin waa cunug yar ma cuni karo barbarooni saas camal basashaas camal fahanteen waa in loo soo jilciyaa marka wax yar dabka soo huurina saa ogtiin kuwa basasha iyo qajaarka wax dab badan ma rabaan waa soo huurina huuris bas aan ku soo karina insha Allah dheecaankan moogi wax kale ku dar rabo markaan soo huuriyo insha Allah iyo aan soo guro aan isku soo laabanayna u jeedina malayna ما شاء الله تبارك الله أصحابتي marka soo diyaariyo waa ka soo ku soo baxay quruxda san ku dhahay dheecaan yar oo rasiin ya suugo yar idan rasiin ku soo baxay mala wixii ka soo jeedin marka soo gura asigana saas ku soo baxay saxankii ku soo diyaariyo waa kaas ma sha Allah quruxdaas ku soo baxay marka asxaabta ka faa'iideyso waxaan idin leeyahay insha Allah kun iyo jeer ka faa'iideysta marka ka soo rasiin waayaan ku dhahay wixii dhan way isu kareen inta siin kara waa la siinaa hilibka laga bixinaa fahanteen
hilib muhiimad maaha cunug inuu ku cuno marka maxay ahaydee ka faa'iideyso aan asxaabay bilis hadaan nagu cusub tahay subscribe na dheh hadaan nala joogto oo ku jecelnahay nala joog dhanka like iyo commenting naga soo dhig intaad wax kale idin soo gelin doon. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.